dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam, magacaygu waa Diyaar Amal. waxaan ka hadli doonaa barnaamij ku saabsan hooyada iyo dhallaanka wiigiiba hal mar. waxaad kala socon doontaan channelkaygaan ku leenahay YouTube-ka ay ku qoran tahay Diyaar Amal. si aad ula socotaan subscribe dhaha barnaamijkan wiigiiba hal mar aad ula soconaysaan. markaad maqasho hooyo iyo dhallaan ayaa laga hadlayaa, waxaad isweydiinaysaa sidee ayaa looga hadlayaa hooyo iyo dhallaan. waxaynu uga hadlaynaa hooyo iyo dhallaan saynu ogaano ama aynu la socono xaaladooda caafimaad darro iyo say u soo wajahaan xaaladda caafimaad darro iyo xilligay u nugul yihiin ama ay soo wajihi karaan xaalad caafimaad darro, ama hadday caafimaad qabaan sayn kor ugu qaadi lahayn ama u tayeyn lahayn caafimaadkooda. anigu ah Diyaar Amal, waxaan muddo 7 sano ah ka shaqaynayay hooyo iyo dhallaan. waxaan ogaaday muddada intaa leegan ka shaqaynayay hooyo iyo dhallaan in baahi weyn u qabno sidaynu wax ugu ogaan lahayn hooyo iyo dhallaan. waxaan kale ogaaday in mas'uuliyad aad u weyn naga saaran tahay hooyo iyo dhallaan, maadaama nahay anagu xirfadlayaashii caafimaadka oo aanu ognahay baahida weyn ay hooyo iyo dhallaan u qabaan daryeelka gaarka ah ee caafimaad. sababtuna waxa weeyaan si aynu u helno bulsho tayeysan oo caafimaad qabta. waxaan jeclaaday inaan barnaamij ka sameeyo hooyo iyo dhallaan. haddaba waxa isweydiin mudan, waa maxay faa'iidada inoogu jirta ama bulshada ugu jirta in barnaamij laga sameeyo hooyo iyo dhallaan? sidaynu wada ognahay, marka la helo hooyo caafimaad qabta iyo ilmaheedu caafimaad qaba ayaa waxa la helaa bulsho caafimaad qabta oo tayo leh. waxay hooyo laf dhabar u tahay bulshada sidaynu wada ognahay, waana halka laga helo qoys tayeysan oo tayadiisu adag tahay. haddii la helo hooyo caafimaad qabta, waxaynu dadaal dheer u geli doonaa hooyo iyo dhallaan saynu wax ugu ogaan lahayn xaaladooda caafimaad, aynu u tayeyn lahayn xaaladooda caafimaad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaasaan kusoo koobayaa. waynooyo kulanka dambe barnaamijka dambe insha Allah bismillaahi kariim.